baddiisii ugu horeeyay uu kaga hadlayo dagaalka u dhaxeeya xoogagga Falastiiniyiinta iyo Israa'iil waxa uu bogaadiyay weeraradii Xamaas ay ku qaaday Israa'iil. Khudbadiisii ugu horeysay ee uu meel fagaara ka jeediyo tan iyo markii uu bilowday dagaalka Israa'iil iyo Xamaas iyadoo ay daawanayaan kumanaan qof oo reer Lubnaan ah waxa uu ku sheegay in waddo kasta ay furan tahay sida kaliya ee looga hortagi karo dagaalka gobolka ka dhacana ay tahay in la joojiyo colaadda Gaza. Hadalka Sheekh Xasan Nasrullah ma ahayn taageerayaashiisa oo kaliya kuwa sugayay, balse waxaa si aad ah isha ugu hayay Israa'iil iyo Mareykanka iyagoo oo sugaya waxa uu ka dhaco xaaladda gobolka. Waxa uu sheegay in kuwa ku doodaya in Xisbullah ay ka gaabisay in gacan ay siiso xoogagga Falastiiniyiinta ay arkaan waxa ka socda xuduudda Lubnaan iyo Israa'iil. Daba hogaamiyaha mayalka adag ee in ka badan 30 sano hogaaminaya ururka Xisbullah oo ay khudbadiisani si weyn ugu dhagtaagayeen caalamul islaam iyo dalalka reer galbeed ee xulafada la Israa'iil ayaa khudbadiisa oo in ka badan saacado si toos ah looga daawanayay baraha bulshada uu ku sheegay in ay qaadi doonaan waddo walba oo ay rabaan isagoo ka hadlaya iska horimaadka ka socda xuduudda Lubnaan iyo Israa'iil. Waxaanu ku tilmaamay Xasan Nasrullah cadow si waxshinimo ah u dhaqmaya oo mandaqada ay ku abuureen reer galbeed iyo heshiiskii Balfour waxa ay dhibaato ku hayaan mandaqada. Intaasi oo dhan marka laga hadlayo Carabta iyo Islaamka waxa lagu tilmaamayay dawlad dimuqraadi ah oo qaanuunka ixtiraamta oo akhlaaq leh. Waxaasoo dhan waxa beeniya xasuuqa ay maanta ka geysteen Gaza. Waxa cadaaday sida ay Mareykanku ugu lugta leeyihiin ee ay uga mas'uulka yihiin dhibaatada Gaza iyo xasuuqa 30 maalmood Gaza lagu xasuuqayay maati iyo carruur aan waxba galabsan oo caalamka oo dhan ku daawanayaan Israa'iil. dowladaha reer galbeedka ee sheeganaya bini'aadanimada iyo qiyamka waxay daliil ka dhigteen been ay leeyihiin Xamaas ayaa carruurta madaxa ka jartay oo aanay caddayn haynin. Waxa ay ku qarinayaan carruurta lagu xasuuqayo Gaza. Maanta dowladda Mareykanka ka mas'uula dagaalka Gaza iyo waxa ka socda Israa'iilna iyaga ka dambeeya. Mareykanka diiday in xabad joojin laga sameeyo golaha ammaanka. Mareykanku maanta waa shaydaankii ugu weynaa ee Ayatollah sheegay. Mareykanka Jabaan xasuuqay Vietnam, Afghanistan, Iraq, Lubnaan waa in lagala xisaabtamo dambiyada ay geysanayaan. dagaalka iyo tallaabooyinka ay qaadeen kooxaha Islaamiyiinta Iraq iyo weerarada ay ku qaadayaan xarumaha Mareykanka ee Suuriya iyo Iraq waa kuwa lagaga argoosanayo cadaawadda iyo dagaalka Mareykanku ka wado Gaza. Waa qaraar xigmada oo sax ah waanan ku taageersanahay hogaamiyayaasha. Qof kasta oo sharaf leh oo xor ah oo ku nool caalamka waxaa la gudboon inuu indhihiisa ku arko xaqiiqada. dagaalkani waa mid lagu difaacayo insaanimadayada oo lagaga hortagayo cadawga waxshiga ah ee ay hogaaminayaan Mareykanka iyo Ingiriiska. Waa in aan laga aamusin ee aynu mas'uuliyaddeena qaadanaa. Aasaaskii Israa'iil dhibaatada ka dhalatay kuma koobna Falastiin oo kaliya, waxay saamaysay mandaqada oo dhan. dagaalkan Gaza waa mid ka duwan dagaaladii aynu hore u arki jirnay ee ina soo maray. Waa dagaal taariikhi ah oo lagu kala baxayo. Sidaa daraaddeedna waa in aynu qaadno mas'uuliyaddeena. Waa in aynu yeelano hadaf aynu hiigsanno. waa in aynu ka howlgalno habeen iyo maalinba joojinta dagaalka iyo weerarka lagu hayo Gaza. Inay Israa'iil ku guulaysato dagaalka macnaheedu waa in la jabiyo Xamaas. Waxay saameyn ku yeelanaysaa mandaqada Israa'iil oo ku fashilantay Gaza. dowladaha Carabta iyo Islaamka waxaan ugu baaqayaa in Israa'iil cadaadis ku saaraan sidii ay dagaalka u joojin lahayd oo ay ka joojiyaan wax kasta oo ay u dhoofiyaan. Carab oo dhan ayaa karila inay qof dhaawaca ka qaadaan Gaza ama ay kaalmo gaarsiiyaan. kooxaha wax iska caabinta Iraq waxay sheegeen in marxalad cusub la galay. kooxaha Yemen, shacbiga Yemen ee sharafta leh, ciidanka Ansaarul Islaam waxay si cad u sheegeen inay walaalahood garab taagan yihiin. Waxay gantaale ku rideen Israa'iil. weligood Yuhuudda waanu soo ridnay. dhinaca Lubnaan waxaan u sheegayaa in dagaalka ay galeen maalintii 7 Oktoobar ee dagaalku bilaabmay. waxaanu ka bilownay Kafaar Shuba iyo Shacba. waxaanu gaarsiinay ilaa dhammaan xuduudda Lubnaan iyo dalka Falastiin. Ciidamada Xisbullah waxay weerareen dhammaan saldhigyada Israa'iil ee bad iyo bari. waxay hawlgallo iyo weeraro maalinlaha ka fuliyeen xarumaha Israa'iil. waxay bartilmaameedsadeen taangiyo iyo ciidamo qalabkooda indhaha u ahaa. Billah waxay ku jiraan dagaal adag oo uu dareemi karo ruuxii xadka joogay oo kaliya. Xisbullah waxa kaga dhintay 750 mujaahid. waxaan kaloon sheegayaa inay culays badan ka qaadeen Gaza kala badh in ka badan iyadoo ciidamo badan oo Israa'iil ay geysay xuduudka Lubnaan. waxa kale oo barakacay kumanaan ka mid ah Yuhuuddii lagu deegaamiyay dhulka Falastiin.
xasan nasrullah waxa uu tilmaamay in howlgallada xisbullah inay khasaaro badan u geysteen israa'iil. xasan nasrullah waxa kaloo uu sheegay inay taageersan yihiin geesiyada falastiin iyo dagaalka qasa dhinaca kale ee lubnaaniyiinta. waxa uu sheegay in wax kasta oo yimaada ay diyaar u yihiin. waxa maraakiibta waaweyn ee maraykanku keenay badda israa'iil ayuu sheegay inaanay marnaba cabsi gelinayn ee ay iska difaaci doonaan. waxa kaloo uu sheegay in ciidamada xisbullah iyo xamaas ay ka tababar iyo tayo sarreeyaan kuwa israa'iil iyo reer galbeedka isbahaystay. maraykanku waa inay xasuustaan guuldarradii ka soo gaadhay ciraaq, afghanistaan iyo lubnaan iyo sidii ay iyagoo dullaysan uga baxeen afghanistaan. waxaa nool kuwii maraykanka ku jebiyey lubnaan iyo kuwii ay dhaleen. maanta maraykanka waxaan u sheegayaa haddii aanay joojin dagaalka israa'iil cidda ku khasaaraysaa inay maraykanka yihiin. haddii maraykanka iyo reer galbeedku ay doonayaan in aanu dagaalku ku fidin mandaqadda, waa inay joojiyaan dagaalka qasa. dhammaan reer lubnaan waxay diyaar u yihiin inay u gurmadaan walaalahooda qasa. mana aqbalayna in qasa maalin walba lagu laayo dumar iyo carruur aan waxba galabsan. ugu dambayntii waxa uu